وبركاته كسر ولا داوديال وحن ورئيسي عن الله ينضنا مع مدى شيء نجار دوان اسكو قبتي دلك استراليا مع مدى هذا وحي كسر انتهى مقالة جرو عاصمة بنتلان هو مركو ورسا مجا عاجا هذا جو قبل على بل وحاب وربحنا قصيصة محاول وصل شيء وحلا يسوى شيء مجا عاجا وحال إسماعيل آدم بلالة وحلا يسوى شيء قبرتي ديو قبتي أي شاشة الله يسوى دقي markaa gigixisa ay ku dhacday waa naxay sidii muslimiinta iyo maxay gaaladu u damqanayeen baan u damqaday marka xagee ku sugnaa marka adiga lagu soo sheegay markii la soo sheegay magaalada Wajaala ku joogay marka warkii midna waan dee naxay kan hayna dee maxaa hawshaas ay la soo diristay maanta hadalba ma qaadi karayo dhibaatada ay la soo diristay waa bixin ba iskama bixin karayo hooyadii macaanu gabadhaada magaceeda ما شيء كذا. ما قاعد هذا ياسين بهالليلة. حل ما كوجد بيسين. 6 سنة كهر. 6 سنة كهر مرنا كل ما يصير لين. حلو خيام ويشرين بوي. محيط لكن استوقت يكون سحري ويبي أو يكون سهل ويبي. وحي اللي سهل ويبي ده هو أقوم بينقطعي. تروفا عدد بالسود ترسي. مركام حيدنا يروي صلي سودت كي نقول صافي لو هيد بيا هيد. markay dee duruuftiina lagu hirgeli weyday dee ma ay ku sugan tahay meel ku sugan ay telefoonina maanan haysan hooyo macaan adiga caruur kale oo la dhalatay ma jirta gabadhan ha 8 ciyaal oo kala la dhashay 8 ciyaal ha maxay hayday aboodu dhintay marka aniguna maxay dee xabuub yar baan u iibin jiray hawshii ila soo diristay dee halkaas ay keentay hadda واقرت ما أنت واحد كسر أنت مجال الجروة المركة جروة حد محاضر هنا مسلمين تيجي كشاريه ويصادران حي إذا يصاد دعوة ده قانون يدق شنقاته باسابور هيا باسابور كده هدو إلهي يرجليو هن إنهم تيجي كوارد هيا يا نويمت عد كلا سحر ده يو حاجة كلا سحر ده ما شرتها أو أهنتان كلا هذا شيء way dadka waxay yahay dadka muslimiinta iga soo warramaya mooyaane dee lambaradooda la siiyay inanta leela iyo inanka muxuu ahaayay Abdi Salaan muxuu ahaa magaciisa Abdi Rashid Abshir ayay la soo xiriira oo iga warramaan ku yiraahdayo dadkaasi dee cadaanka aasahaya iyo leeyihiin wax kale waramaya ma jirto waa garta marka maanta maxaa jeclaan maanta waxaan jeclaan lahaa wadan arko umbaan adduunka u jeclaan نصيبك يبدأ موي يرسي هذا محل على شيء عافمات كده سديه هو استرى يا بلديه لكن موي سببت يسكو قبت من أول شيء صوتي سكوتي لي بشيء ولا عيد كاتشون بويسي باموري لكن هذا محل على سنتها يعني يسكو قبتي وحي يسكو قبتي كل كاتشي يتريو يدر ما يكجرتي دلك استراليا أنت بدأ واحد ها ودن قنية ودن قنية اللي يقول أنت كقني aniga dee winantay isku tay dadka kale dee u joogayna qani u noqon mooy marka markii ay ka tagasay maxay ku sheegtay Soomaaliya ka madaxsay oo waan iska dayo waqti biya mariid taariibta marka kharashka soo kama bixin oo xilliyada ay sii kharash ka baadad haysan way macaan shayda ka aragtaa shayda ka aragtaa kharash ka maanaysan qof iska badan mudo maxay xaaladda ilaahay u yaqaanaa maxaa marka ka shaqayn jirtay oo xabuu taayir ka shaqayn jiray wax kale ma nadiif iyo dhulkan xaal marka hadda caruurtii kale yaa lagu afar meel way joogaan Wajaala way joogaan saddex afartii kale mooyaan mid ay la socotaan saddexdii kale mooyaan meel ku sugan dawladda Australia ma jirtaa codsi aad u diri lahayd codsi baan u diri lahaa ina ubadkayga iyo anigaba ay xeeyaan oo meel ku wada noolaano ayaan ka codsanaya ugu dambeyntii dadka kale oo Soomaaliyeed wax farina iyaga u gudbinaysa ma jirtaa waxaan u hambalyeeynayaa dadka muslimiinta ah ee iga soo maxay haydeen ila soo hadlaya iyo jaariyadahaba waan hambalyeynayaa خير بنك عطسنا يا هو خير بنك عطسنا يا بعض ما صنتهاي taas waxay ahayd xaalad Ismaaciil Aadan
oo iyadoo ah hooyadii dhashay gabar dhawaan isku gubtay dalka Australia xaali haatan waxay ku sugan tahay magaalada Garowe caasimadda Puntland waxaan nala soo xiriirsiiyay oo haatan nala jooga guddoomiyihii hore jaaliyadda dalka Australia oo isna ku sugan magaalada Garowe magaciisa ayuu bilaabi doonaa gudoomiye dhacdadan sidee ku dambeysay markaad cabireen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعد عبد الرحمن جامع عثمان قدوميه هوري Somali community of Victoria waxaan u maleynayaa dareenka iga galay gabadhan gubideedu maaha mid saaka kaliya muxuu ahaa igu soo kooban waxa weeye hadda intii dhowr usbuuc ah oo laigala soo hadlayay Australia waxaa la ii sheegay gabadha gubninteeda waa anagoo dhan waa dareensanahay Soomaali kasta meel kastoo Soomaali joogta waxaanu rajaynaynaa in hooyadeed iyo carruurta loo gargaaro sidii loogu geyn lahaa hodan oo aad ogtihiin inay aad iyo aad u liidato sida la ii sheegay inkastoo hadda la leeyahay waa soo dhaqanaysaa laakiin waxaa la ii sheegay 90% inay gubatay qofkuna 90% qofka gubtahay waa khatar bay ku sugan tahay ilaahay ha caafiyo ummadda degan dalka Australia dhammaantood waxaan leenahay habarta hooyo ah ha u soo gargaaraan intay halkan joogtana de anaga aniga la joogtaa oo haynaya haddii kalena weyaan la meesha tagto waa idin sheegayaa waxaa la ii sheegay kolley safaaradda Australia Addis Ababa iyada laftigeeda inay war hayso ku saabsan hooyada laakiin waan hubin doonaa iyada laftigeeda waa mahadsantihiin dhacdadan hadda ka hor intaad Australia ku sugnayd dhacdadan marna ma dhacdo waa badan tahay sida aad ogtihiin nin muxuu ahaa India iyo Pakistan mid ahaa waa isdilay isagoo meesha ku dhintay waxaa kaloo jirtay gabar Soomaali ah oo shida weyn naga qabsatay in meesha lagu kubsaday markii la kubsadana ay rintay marka oo aan qayladeeda markii la kubsanayay xataa nala ka maqashiyay TV-yada iyo waxaas oo dhan haddee aniga laftigeedu waad garan karaysaa oo meesha qaxootinimo ku tegay inkastoo aan tagay 25 sano 26 sano ka hor dhibaatooyin badan baa jira waxa aan xalilay oo aan u dagaalanay waa ka badan yihiin boqolaal qof si ay u helaan xaqooda qaxootinimo dalka Australia laakiin xisbigan hadda haysta dalka ayaa wuxuu yahay xisbi aad uga soo horjeeda in laga soo galo badda wadarkaas maamadu aad loo dhibaneed murugo badanna waa ka muuqatay fariin aad u diraysid adiga dowladda Australia oo kale ma jirtaa waxaan la hadlayaa hadda waxa weeye gudoomiyaha Somali community of Victoria Leila oo ah iyadu member federaalka ah oo Leila waan kula hadlayaa waan ogahay liberaalka inaad tahay anigu waa raas waxaan labadiina idinka codsanayaa inaad u dadaashaan qoyskaas si ay u tagaan muxuu ahaa dalkii ay mar u arkaan gabadhii oo kaliya markaa ka bacdi haddii iyaga laftooda nafta ay leeyihiin oo kale gabadhu leedahay way dhiban karnaa inaguna waa dhibanaynaa dhammaanteed nin banaanka joogayaa ma jiro